بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الله سوماليد ميلاد جوجتان بإلهي سبحانه وتعالى إذكوان ما يالو عدي بنبك الله كقاضو عدي دن الله وفيو انت بان الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت لمتى الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستو أنا الله نوغد بنحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa saddex qodob. qodobka koowaad, xasan sheekh maxamuud oo ku sameeyay isbedel golaha wasiirada. qodobka labaad, wasaaradda dowladda Puntland madaxweynaheeda oo ku dhawaaqay inuu lacag samayn doono ay leedahay Puntland. qodobka saddexaad, qadiyadda Cerigabo. waa mar koowaade xasan sheekh maxamuud sidii caadadaba u ahayd ma laha mowqif midaysan oo uusan iska badbedelin. isbedelkan lagu sameeyey wasaaradaha waxaa saldhig u ah in laga takhaluso cabdirasaaq wasiirkii batroolka. waxaa la soo geliyey suuqa dacaayad ay wadaan xasan iyo raggiisu oo ku saabsan inuu wasiirku madaxweynaha lacagihii batroolka ka dhacay. waxaan maqli jiray damn if you do damn if you don't. hadday run tahay xasan waa khaa'in tuuga, dee tuug la dhacay oo tuug kala dhacay inuu lacag ay ka wada hadlaanba ma ahayn. lacag haddii ay jirto inay dowladda Soomaaliya iyo akoonka bangiga ku dhacday yahay. marka hadday xadayeen oo wada xadayeen oo ka xaday waana feershanka iyagu faafinayaan, hadda waa ceeb xasan sheekh u taal iyo caar ku yaal iyo wixii lagu bartay oo ahaa musuq iyo tuugo. hadday been tahay oo versionkan aan sheegi doono ay run tahayna hadda iyaduna ka sii daran. labada jeerba waa fashilan yahay. xasan iyo cabdirasaaq waxay heshiis ku ahaayeen, saaxiibna ku ahayn, kuna wada socdeen, kaambeynkana ku soo galeen khaladka iyo buuqa ka jira Hirshabeelle in la saxo. oo maxaa lagu saxaa? Hirshabeelle caasimadii iyo madaxweynihiiba isku reer baale, laba reer baana wada degan meesha. marka abgaal in la siiyo caasimadda, madaxweynahana lagu celiyo qoladii lahaan jirtay oo ahayd xawaadle ayay ku soo galeen kaambeynka. xasan waa transactional, qofka markaasuu isticmaalaa, markuu ku danaystana waa tuuraa. keligiisna maaha, waa iyagoo dhan, waa caan bay ku wada yihiin. markaas waa qof fiican, laakiin markay hawshooda ka qabsadaan cid kale ayay kula shirkoobaan. xasan iyo cabdirasaaq heshiiskii noocaas ahaa waxaa dhexda u galay oo buuq ku kiciyey Sambaloolshe oo booskaa yaroo uu helay ku gatay qadiyadii Hirshabeelle iyo reerka ay ka soo jeedaan isagii cabdirasaaq ee xawaadle. iyo cali guudlaawo ka dagaalamaya kursigiisa in laga qaado. xasan waxay kaga adkaadeen inuu iyaga raaco. xasan iyagu raacay. cabdirasaaq dhowr jeer buu u sheegay, sida ilaa aad ugu dhow ay ii sheegeen wasiirka, wuu ka diiday. xalay baa loo yeeray, waxaa la yidhi maadaama aad diiday waa kala faataxaysanay, wadadaada khayr allah dhigo, anna wadadeeda khayr allah dhigo. qof kalaan keensanayaa meesha. wasiirkaas waxaa shaqada looga qaaday qadiyadii Hirshabeelle oo ahayd in madaxweynaha iyo la kala qaybiyo caasimadda oo labada reer wax loo qaybiyo, oo ay dareemayeen cadaalad darro sanadahan oo dhan ay ka dacwoonayeen. qodobkaas ayaa saldhig u ah kala badbedelka wasiirada. waxaan tala siinayaa wasiirada hadda qaylinaya uu ka mid yahay Fartaag, hadda laydin isticmaalaya daqiiqada kadibna sidii istiraashadii baa qashinka laydinku daraya. gedo dagaal uma baahna, xabadna uma baahna. gedo wadooyin buundooyinka oo loo dhiso, afarta buundo oo geda gasha afartuba waa jabeen. xasan dan kama gelin, Fartaagna dan kama gelin. iska dhaaf inay gedo wax u dhisaan ama wax u qabtaane dadkii reer gedo oo Muqdisho joogay baa la boobay. waxaa boobay xasan iyo xildhibaano uu kaga iibsaday dhulkoodii, uu kaga iibsaday cod ay siiyaan oo dastuurkii uu baaranayay. dastuurka waa boobayay, umana laha xaq. dastuurku ma aha waxa isagu iska badbedelan karo. ansax weeyana uu haystaa ninkii madoobaa, oo wax walba waa ansax leh na uu haystaa. qodobka marka waa idin digayaa qolyihiinaas la isticmaalaya maanta, ha ku ceeboobinina maalmaha hore, ha ku fashilminina meesha. qodobka intaasan ka oranaya. qodobka labaad, dani wuxuu yidhi waxaan samaysanayaa lacag. dastuurka Soomaaliya waxaa ku qoran lacagta waxaa iskale iyo monetariga dowladda Soomaaliya iskale.
دولة دحيح هذا كور مرة بدن بقى جمع قشين معمول كبنتلان نمانك إليت كأه معمولا وأنتي سوماليا government building سوماليا دولة إن لورد السوي كسهور جدا كلي قد معها وحا إنا هيسته أو دنا الشخصية بيكشقينيا waxay ka shaqaysanayaan ganacsi ayagu ay leeyihiin oo ay lacag ka helaan hadba dhanka ugu badasay la aadayaan Soomaaliya waxay ku socotaa mar dhow in khariidada laga tirtiro wax la Soomaaliya dalkan oo dhan lagu daro ama Ethiopia Kenya loo qaybiyo adduunku waa ku daalay 34 sano ayay marayaan siyaasad ay leeyihiin lama arko ujeedada ay leeyihiin lama arko wax sovereignty-ga iyo madax banaanidooda ilaalinayo ay leeyihiin lama arko مثلا تصالح كا بخينيا حسن شيخ مالي دود أنكرا هشيسكي وصو صحيحي waxa ku jirta territorial integrity waxa ku jirta independence iyo Somali unity marka independence waxa laga reebay kelmadii ugu muhiimsanayd oo ahayd political independence Soomaaliya siyaasadeeda inay u madax banaan tahay baa laga reebay waxa Soomaaliya oo madax banaan tahay oo yaa inay madax banaan tahay diidan oo Soomaaliya ay xor tahay wadan xor oo calan leh oo 60kii xoroobay waxa diidan waa political independence حسن وصحيحيا كان كلا وصحيحيا مربى هدي حقا العقل الصينية خلاص دني هذا وحو violation كسمينها دولة النمدي الصومالية وحو ربائنه بربورية قرن النمدي الصومالية لما العقود بان كلا يلان كرنا ودم فدرال لما العقود له بهجره ودوديس دستور كالصومالية وحكو قرن شن وحيابود ودولة الصومالية إلى هاي قروا لقو قري أكواد 1 iyo 2 فرولا كو قري قفكي ugu horeeyo diidayna farol noqday intii bay ku socdaan Abdiwali sidoo ku socday Soomaaliya Muqdisho Soomaaliya ma kana waa sidoo kale lacag baan sameysanaynaa confederate inaan noqono weeye wadan ka baxsan wadanka Soomaaliya wax ay rabaan oo aan ahayn inay meesha iyagu haystaan haba yaraatee lama arko aqli xumada noocaas ah baa Soomaaliya hadda ku socotaa aakhirkana waxay dhaxalsiin doontaa in taariikhda iyo juqraafiga laga bedelo adduunka waxa ka socda boob إسرائيل وحلا سي green light إني لبنان قادته سوريا برقبسطة دقورن هيدا وصور دافته واتنجودها كتيرتا ماشي قلنا حتى قبسطين إيدا ودتي ولا سعتي عالم كيوردن باله ربع إسرائيل شيء يريد اللي بدله أدون كورما جغرافيا اللي بدل يا أبسيني إيدا إني وحرمتها بدأ يالته وهي بدأ قبسطه سيكو قبسان دونتنا وحوي وسياسي جاس aan hankana lahayn qabkana lahayn Soomaalinimaduna aysan ku jirin lacag hadii la siiyana sidii haweenkii wadada taagnaa jirkooda gadanayay diyaarka oo ay wax walba saxiixo kulligood waa jawaasiis iyo dad u shaqeynaya waxa la yiraahdaa qaarna waa jawaasiis qaarka kalena waxa la yiraahdaa useful idiot waa la isticmaalaya isagoo ogeyn intooda badanna waa inta ama dhamaantooda ama kulligoodba waxay u socdaan dana shisheeye inay hormariyaan qadiyadaasi waa qadiyad lid ku ah madax banaanida Soomaaliya lagama raali noqon karo wax lacago ay samaysan karto Puntland oo gaari ma jirto Soomaaliya markay samaysanayso waxay dhaheen Soomaaliya waa ka go'nay idinku cadeeya marka meesha u socotaan ma go'aysan oo ina go'daan baa rabtaan hadaad go'aysan maxaad ku go'aysan based on what qoladaas ay ku go'ayeen British Somaliland baanu nahay markii hore aan kaliya xor noqonay oo dal gaar ah noqon karnay sida Djibouti idinku maxaa ku go'aysan qaybtaana ka tirsanaydeen maxaad xornimada aad gaarka u hesheen maxay tahay xuduudiin waatee ma arkaysa kelmadaasna intaasan ka oranaya qodobka saddexaad Erigabo waa magaalo la wada degan yahay qolo gaar u leeyahay ma jirto laba qadiyadoodba hala joojiyo yaan lagu dhamaan meeshaas oo aan la islayn oo dadka la barakicin iyadoo aakhirka la tagi doono sida dhabta ah oo rasmiga ah qodobka koowaad dagaal loogama baahna qodobka labaad hal dawladi ma maamuli karto laba maamul oo isgarab yaal sida gaalkacyo oo kale waa in laga dhisaa Erigabo hadii la kala degan yahay isku maamulna aan la ahayn isku siyaasadna aan la ahayn Somaliland ay maamul tahay madax banaan oo gaara oo madaxweyne gaar leh cirra u taliyo SSC khaatumana ay tahay dad gaar oo madax banaan oo maamul oo firdhiyo u taliyo markaad isku dhamaataan wax aydinan ka fursan doon hadeer hadiidinina hadeer inta wada fariisataan political heshiis gala heshiis amni iyo heshiis siyaasadeed gala qolo waliba xaafada ay degan tahay waxa maqlayaan waligay ma tiin Erigabo inay kala soocan tahay haday kala soocan tahay waa heer sare kuwan gaalkacyo waa isku dhex jireenba mawjeeda hadayba kala soocan tahay inteeda badan ay la kala degan yihiin laba dhinac loo kala degan yahay laba daamood
تقول ولا بتانتي هذا حمامرته حنا لو دقناده ولا هلا هذا أمني أمانها لو دقناده حبضنا يان دتك مساكين تو مسلم كاو ماشي دقن لا بركعين وردتك بركعين تا لغا داي حبدنا لغا داي أنا قضيتاس intaasaan ka taagan hadda koor kelmadan iri baa la ii sheegay oo la xasuusiyay waxaan ku iri erigaabo ha lagu daro maamulka khaatumo dekad ha looga dhiso laascaanoodna ha ahaato magaalo madaxdeeda anu qaybtoodaan ka hadlayay dad kale dhulkood in lagu duulo diinta islaamkuna ma banayn mana ogola qofka gurigiisa lagu duulayna xaq buu leeyahay inuu dagaalamo dagaalkaasina dagaal xaq ah oo jihaadu dafci baa la yiraahdaa ودفاع عن مالكاga iyo hantidaada iyo awlaadaada iyo caruurtaada iyo reerkaaga dignitigaaga iyo sharaftaada cidi duulaan ku iska dhicinaysa marka qadiyada aad looga fiirsado xabada inta dhulka la dhigo labada qolaba reality-ga laga wada hadlo cirro waa inuu reality-ga ka hadlaa ah qayb uusan xukumi karin oo ka madax banaan inay ka mid tahay ceerigaabo firdhiya waa inuu ku darsada maskaxdiisa iyo aqligiisa inay jirto qayb uusan dadkeeda shuqulna ku lahayn qixinna karin xoogna kaga qabsan karin dhulkooda kelmadaasna intaasan ka oranaya si guud Soomaaliya waxaan leeyahay